bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal galwareediyo maantana waxaa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo xasan sheekh ka diiday inuu ka qayb galo xafladiisa caleemasaarka kuna xiray shuruud qab iyo qarannimo xambaarsan. faahfaahinta ayaad ku daawan doontaan. imaatinka uhuru kenyatta ee caleemasaarka xasan sheekh oo jidadka muqdisho loo xiray xilli shacabka caasimadda ciriiri nololeed dhinaca dhaqaalaha ka wajahayaan. yaasiin fari oo kashifay xogta dilkii igraan tahliil iyo xildhibaanad aamina una saariyey siyaasiyiin caan ah. haddaba siyaasiyiintaasi waa kuwe? rooble oo la ogaaday in kursiga fahad yaasiin uu ugu dheganaa hal arrin oo ka naxday qabiilka kursiga iskale ayaan sidoo kale idin haynaa. dunidan ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson oo ka badbaaday colka kalsooniga ee baarlamaanka u k. soo dhowaada madanayaal baahiya xogahan nagu beeriya aragtidiina nalana wadaaga idinkoo qaybta faallada ama commentiga nagula wadaagaya janaalkeenna sabskareeb soo saaran beejkeenana soo falow gareeya waa hagaagan ku bilaabo. siday warbaahinta galwareed ku heshay xogo kala duwan waxay muujinayaan in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo loo diray casuumaadda kasoo qaybgalka xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku gacan sayray. madaxweyne farmaajo ayaa shuruud la yaab leh ku xiray imaatinka xafladda caleemasaarka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo dalbaday inuu uhuru kenyatta aan dalka la keenin uusanna ka soo qayb galin xafladdaasi caleemasaarka ee ka dhacaysa magaalada muqdisho. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in uhuru kenyatta uu yahay cadowga soomaaliya aysanna mudnayn in muqdisho lagu soo dhoweeyo. waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed uu ku xasuuqay gobolka gedo arrintaasi oo keeni karta in shacabka soomaaliyeed ay nacaan. waxa uu sheegay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo in 5 sano ee lasoo dhaafay kenya ay colaadin ku hayday soomaaliya, sidaas daraaddeed aysan macquul ahayn in soomaaliya ay hadda magaalada muqdisho ku soo dhoweydo hogaamiyaha kenya uhuru kenyatta oo shacabka soomaaliyeed ay ka wada dheregsan yihiin dhibaatada ay ku hayaan bulshada iyo mujtamaca soomaaliyeed ee dega xuduudda gobolada kenya aan la wadaagno. sidoo kale kenya markii maxkamadda sare ee heeg ay soo saartay go-aankii kiiska badda way ku gacan seentay inay soo dhoweydo arrintaasi oo muujinaysay sida kenya ay kaga go-an tahay inay xoolaha soomaaliya boobto. madaxweyne farmaajo ayaa xasan sheekh maxamuud u sheegay in kenya ay tahay cadowga koowaad ee soomaaliya aysan ahayn in si sahlan dalka loogu soo dhoweeyo hogaamiyahooda ilaa ay raaligelin ka bixinayaan islamarkaana xiriirka soomaaliya iyo kenya si toosa loo soo wada celinayo. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu isagoo madax bannaan yahay haddii uu kenya heshiis la gelay iyo haddii uusan la gelaynin, laakiin isagoo uu leeyahay ikhtiyaarka inuu tago xafladda caleemasaarka maadaama uhuru kenyatta uu imaanayana aysan lahayn wax muhiimada oo madaxweyne farmaajo uu ka doono. arrintaas shacabka soomaalida ayaa aada u soo dhoweeyey waxayna madaxweyne farmaajo ku tilmaameen nin go-aan leh islamarkaana nacaba shisheeyaha iyo dadka soomaaliya dhibaatada ku haya. xaaladahaasi waxay muujinayaan in madaxweyne farmaajo uu mar walba ku adag yahay mowqifkiisa ah in soomaaliya laga ilaaliyo cadowga shisheeyaha gaar ahaan wadamada dariska ee soomaaliya lidiga ku ah jiritaankeeda amni iyo sidoo kale wadaniinimadeeda. madaxweyne farmaajo ayaa dhiirigelinayay waxyaabaha loo yaqaano patriotic ama wadaniyadda xilliga uu talada hayay, arrintaasi oo si weyn ugu kasbaday shacabka soomaaliyeed quluubtooda maadaama dadku ay yihiin wadaniyiin jecel dalkooda islamarkaana si weyn ugu dheeran kara inay colaadiyaan shisheeyaha doonaya inay xaalufiyaan kheyraadkooda islamarkaana shacabkooda dhibaateeyaan. magaalada muqdisho iyo jidadkeeda ayaa maanta gebi ahaanba wada xiran waxaana ujeedada ugu weyn ee loo xiray ay tahay wufuudda ka imaanaysa wadamada dibadda ee kasoo geybgalaya caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh. khamiista oo 9 bisha ku aadan 2 maalmood ayaa ka dhiman xilliga la qorsheynaya in caleemasaarka uu dhaco, laakiin xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqda hadda inuu go'aansaday inuu gebi ahaanba xiro jidadka. warar kala duwan oo helin ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud sababta uu amray in jidadka loo xiray ay tahay imaatinka madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo saacadaha soo aadan kusoo wajahan magaalada muqdisho. waxaa la rajeynayaa in jidadku ay sii xirnaan doonaan muddo dheer inta uu ka baxay uhuru kenyatta waddanka. dalalka kale mas-uuliyiinta ka imaanaya ma aysan dalba in jidadka loo xiro, sidoo kale in amnigooda la sugo, laakiinse uhuru kenyatta oo si weyn aan isugu aamini karin ciidamada soomaaliya oo sanadihii lasoo dhaafay oo colaadinaya ayaa si weyn uga dalbaday xasan sheekh maxamuud in jidadka loo xiro islamarkaana lagu amro taliyayaasha ciidamada inaysan wax howlgala ka qayb qaadan karin inta uu joogo gudaha dalka. uhuru kenyatta ayaa cabsi xoogan ka qaba taliyaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawa yuusuf raage iyo taliyaha ciidamada booliiska oo iyagu mas-uuliyiin ka ah ciidanka xoogga dalka. intii uu joogay madaxweyne farmaajo xilligaasi oo kenya ay soomaaliya si weyn u colaaday islamarkaana ay shacab soomaaliyeed ku xasuuqday xuduudda aan kenya la wadaagno gaar ahaan gobolka gedo ee magaalada loo yaqaano beled xaawo.
xaaladda magaalada muqdisho ayaa ah mid cakarnay iyadoo shacabku ay wajahayaan dhaqaale xumo aad u baahsan, nolosha ayaa adag, abaaraha ayaa sameeyey, sicir-barar ayaa jira. Sidoo kale xaaladda doorashooyinka dalka ayaa si weyn u saameeyey dhaqaalaha magaalada muqdisho, iyadoo shacabka qaarkood ay wajahayaan duruufihii ugu adka ee abid soo mara. xiritaanka jidadka muqdisho ayaa ka dhigan in shacabku ay ku qasban yihiin inay u lugeeyaan goobahooda shaqada, qaarkoodna goobahooda shaqada inay tagaanba looma ogola. Sidoo kale wadooyinka qaarkooda jidadka ayaaba loo ogolay inay ku lugeeyaan dadka shacabka, arrintaasi oo sababi karta in ay muqdisho ka dhacdo xaalad bini'aadantinimo. arrimahan oo kale waxay sababi karaan in hooyooyinka umusha ee isbitaalada loo wada lagu celiyo jidadka, islamarkaana dadka bukaanada ah ee isbitaalada loola roorayo ay gebi ahaanba duruuf ku wajahaan guryahooda, qaarkoodna ayba u geeriyoodaan daryeel caafimaad darteed, maadaama aan loo ogolayn inay ka gudbaan jidka ay isbitaalka ku geli lahaayeen. kusimihii taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farri ayaa si toos uga hadlay kiiska ikraan tahliil faarax. yaasiin farri ayaa sheegay in hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ay soo bandhigtay xogta ku aadan kiiska ikraan tahliil iyo halka ay ku baxday, isagoo sheegay in ururka al-shabaab ay gabadhaasi wateen islamarkaana ay khaarijiyeen. yaasiin cabdulaahi farri ayaa waraysi uu bixiyey warbaahintana la hadlay, waxa uu kaga hadlay kiisas badan oo la xiriira hay-adda nabadsugidda loo haystay, gaar ahaan kiiska ikraan tahliil iyo kiiska xildhibaanada aamine maxamed cabdi oo lagu dilay magaalada beledweyne. waxa uu sheegay yaasiin farri in kiiska xildhibaanada aamine uu ahaa mid si weyn shacabka soomaaliyeed uga wada dhergsan yihiin, maadaama ay dileen ururka al-shabaab ayna sheegteen iyagu inay khaarijiyeen. sidoo kale waxauu sheegay kiiska ikraan tahliil faarax inuu ahaa mid dowladda soomaaliya ay marar badan ka hashay, islamarkaana loo saaray guddiyo kala duwan, wuuna ka gaabsay in wax faahfaahin ka bixiyo, isagoo sheegay in hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka baaritaanka ay sameyd ay ku ogaatay sidii la wadaagtay ra-iisul wasaarahaba in gabadhaas ay al-shabaab dileen kadib markii ay qafaasheen. yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farri ayaa sidoo kale ka hadlay hay-adda nabadsugidda sidai u shaqeynay sanadihii lasoo dhaafay, isagoo sheegay in hay-addu ay ahayd tii ugu awoodda badneed ee dalka Soomaaliya. wuxuu sheegay in hay-addan ay macno yeelatay xilligii uu joogay Fahad Yaasiin, arrintaasi oo sababtay in hadda ay siyaasiyiinta u kala rooran. waxa uu sheegay in geeska Afrika aanu ka muuqanay intii uu Farmaajo joogay dalka. waxa uu sheegay xildhibaan yaasiin farri in hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka waxa keliya ay dalka u qaban kartay ay ahayd inay ka difaacdo cadaawaha, taasina ay ku guuleysay iyadoo sameyday hay-ado mukhaabaraad oo kala duwan. sidoo kalena baaritaano la sameeyey lagu helay xogaha dambiilayaal doonaya inay dalka dhibaatooyin kala duwan ka geystaan. dhinaca kale, gudoomiyihii guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal muuse geele yuusuf ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladihii doorashooyinka dalka, gaar ahaan kursiga Fahad Yaasiin xaaji daahir oo ilaa iyo hadda lagu dhegan yahay. waxa uu sheegay muuse geele in Fahad Yaasiin aan shakhsiyan loo beegsanayn, laakiin kursigiisa uu ku jiray kuraas habraac qaldan lagu soo maamulay. qaarkood ayuu sheegay in lagu celiyay, halka kuwo kalena la fasaxay kadib markii dib u eegis lagu sameeyey. waxa uu sheegay in kursiga Fahad Yaasiin qabiilka iskale ay tahay inay go-aan iyagu ka gaaraan, arrintaasi uu ku macneeyey inay tahay waxa keliya ay awood u leeyihiin inay markaasi dowladda ku yeeshaan qabiilka kursigaasi iskale. waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka uu maray habraaca kasta oo waafaqi karaa in arrintaasi la soxo, isagoo sidoo kale ka hadlay in ra-iisul wasaare Roble xafiiskiisa laga soo qori jiray warqadaha guddiga doorashooyinka heer federaal, isaga oo beeniyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha markaasi koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, oo isagu sheegay in muuse geele yuusuf warqadaha looga qoro xafiiska ra-iisul wasaaraha, gaar ahaan uu qoro wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta alcadaala. muuse geele yuusuf ayaa arrintaasi ku tilmaamay inay ahayd wax lagu qoslo, islamarkaana uusan rabin inuu hadda ka hadlo maadaama mas-uul sare oo dowladda ka tirsan uu ka soo yeeray. waxa uu sheegay in kuraasta habraacooda la khalday ay ku qasbanaad inay dib ugu celiyaan, maadaama beelaha iskale kuraastaasi ay si weyn uga biyodiideen. sidoo kalena musharaxiin u tartamaya kuraasta ay cabashooyin kala duwan u soo gudbiyeen. waxa uu sheegay in xaaladihii qalabsana ay ku soo shaqeeyeen ay ka dhaxleen waayo aragnimo iyo in dalkan uu aadi karo doorashooyin qof iyo cod ah iyadoo loo dhabar adeygayo. wuxuuna u mahad celiyay ra-iisul wasaare Roble oo si weyn kaga qayb qaatay in doorashada si nabdoon lagu soo gebangabeeyo. shagarayo xogahan qaybta faaladan gol wadaag aragtidii tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.